وهوين قروح بدن وجيو فرحدي أي كم مقطع أي هل كان يجمع كل كورة ما هذا حيوصل ناتي إلهي نوصل تقولي عاوة إنه فرحسن إنه مديسن إنه هلا إنه نود بعثرتنا وحول بو أقل من ذكوتها يتحي عاوة هوين يقل من ذك عوام حفلة الواحد تاعي قل من ذك حفلة شخصيات فربدا هي كسر شقيقي أيوه الريال بدومياشي حفيز كان قلب من كولومبوس أوهايو وهل كان فبيع مركا جاليدو هوينادا اسكو يمادان وهوينك كليا يقول شو دي صارت عاونا هل كانوا وحين أرقنا هل دوركي جاليدي الصومالية المودين dhaqankii siyaasiyiintii magaalada ganacsatadii haweenkii dhalinyaradi oo dhan waa loo leeyahay xafladeena ayaynu gudagalaynaa balse intaynu xafladda gudagalin waxaynu ku bilaabaynaa ayadihii qur-aanka waynoo daafuri doono walaalkeenna cumar cabdishakuur cumar soo dhow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أدو مهسية ولكن عمر وسمي يتوب مركنا هذين نقول ابن حكاية دخلك وعين نجوغا قرأ داود عشور ورسمه وكمدا دخلك الصوماليين جاليد كولومبوس أي كنت يسمتها مرور قرأ داود عشور ورسمه سودو dhammaan waalid salaamayaa dadweynaha reer Columbus ee ka soo qayb galay xafladan qiimaha iyo qaayaha fadhida qof walba waxaa ku salaamayaa deeqaankiisa iyo masabka uu ku fadhiyo rag iyo dumarba odayaal iyo waxgaradba si gaara waxaan u salaamayaa madaxda inoo suurtagelisay inaynu caawa halkan isugu dhimaano gudoomiye daahir cali nuux gudoomiye ku-xigeen ayuub tilin xooghaye dhammaan jaaliyadda qaybaheeda kala duwan aad iyo aad baan idiin salaamaya waxaan jeclaa caawa inaan kaftamo laakiin kaftankayga waa lu dhaqay niman aan halkan ka feliyey baan caawa la ahayo waxaan rabay inaan abaal iyo banno sheegto laakiin waa la dhaqay qofka bini-aadanka marka uu rabo inuu xornimo helo wuxuu ogolaadaa inuu dhinto marka uu rabo inuu gobonnimo helo wax walba uu huraa sidii reer khaatim oo kale ayuu wax walba u huraa si uu gobonnimo u helo qofku marka uu rabo inuu nolol fiican ku noolaado wuxuu sameeyaa waxbarasho waxbuu bartaa ilaa heer wanaagsan buu ka gaaraa markaasuu noloshu macaanaataa qof nooloo jiran uu noqdaa reer galmudug waxaan u malaynayaa wax badan bay caan ku yihiin oo caawa inaan taariikhdaa dheer dee waqtigaan iigu sumayna inaan galo waa jeclaa markaad maqashaan galmudug maxaad xasuusataa dadka qaar baa cabdilaahi ciise la soo boodaya qaar baa waxay odhanayaan siyaad bakir qaar baa waxay odhanayaan cabdiqaasi qaar baa waxay odhanayaan xasan sheekh qaar baa waxay odhanayaan
qorqooriyo inay caawa waxaynu orananaa daahir iyo ayuu caawa waxaan u malaynayaa xafiiskan qiimo weyn buu noogu fadhiyaa rag ka bixi kara hawshaas oo inoo qaban karaa oo baahida aynu qabno dabooli karaa waxaan u malaynayaa dee waa u dhiibanay waana u aastaynaa iyagaynu ka suganaa wixii waxaa la yidhahdaa 11 qabiil baa degan galmudug haddii waxay naga maqan yihiin iyagaynu ka suganaa inay dhammaystiraan wixii horumara ee galmudug iyo isku xidhitaanka jaaliyadda North America ama Columbus waxa weeye madax baynu u dooranno aynu ka fadhinaa inay isku xidhaan 2 sano ama 3 sano ama 4 sano hadda ka bacdi waxaan malaynayaa inay jaaliyaddu la xisaabtami doonto aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan rabay inaan yaro kaftamo idhaahdo qolyaha reer abtiga ee mareexaan kursiga iyagu ma doonaane dadkaa la doonta laakiin aga way adag tahay in laga kixiyo marka waxaa daahir leeyahay oo ku canaananaya bal meel fiican loo geey kolley kugu sii hayn mayna waa kaa dejin doonaaye dhammaantiin waan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan u malaynayaa dee waan jeclaa in iska sii sheekeeye waktigaan xoogaa igu simay marka aad baan idin salaamaya garaadka aad buu u mahadsan yahay caawa dad badan waxa laga yaabaa inay isweydiinayeen galmudug night maxaa loogu magac daray su-aasha waxay nooga jawaabi karaan shaksi ku magac dheer oo jaaliyaddu ay u wada taqaano milkiilaha galmudug waa gudoomiye xuseen cabdulle samatar food cade ila soo dhaweeyay gudoomiyaha soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم إلهي لما الله سبحانه وتعالى أولا كنتي ستيج كما كلي وياي مقعد ويباوي وياي صحيح وهو مثلية كان كلا دي موسيقى وحيابها عصرها السعودية الوصول لكن أوقات كذا ذكرني ندي بلا marka reer muusigmiya dalla jangaad wayaysi lagu soo dhaweeyay yaa la yaqaan tatirkay intaas kadib runtii aad iyo aad baan caawa ugu faraxsanahay wajiyada aadka u quruxda badan oo rag iyo dumar gabdho iyo wiilal reer galmudug iyo inta kale oo nagala soo qayb gashay xafladani caawa aad ku sharafta badan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo qof kastoo ka soo qayb galay magaciisa iyo mansabkiisa وأنا من هذا اليوم كسوق يقول لك وراك سنة ولا سوق يقول عاوة حفلتني قلبي بناي. وهذا بقول أنا من هذا اليوم تي صحافة ورمتي كانوا من الشخص الصومالي بجدة وحقبة دوين أولى. هلكن عاوة حمرين يا بني ربنا وصحافة السياقات كلا الدوان وشخية بنا نجورا. SNTV ولكن ده كسونا SBTV ولكن عمر ورمتي SBTV وعمرين كنا وقربس كليك كتير في عالم يقلموا بكسرات الجبلة تلك الصومالية كانوا يقول هاي مركز ما أنتوا نوام ما تعلنيا أنت سكجل قلموا تاريخ ده يوحى هاي يمن مريدا كنتي وحاد وشكين تورا ملاحظة erayadii koobnaay oo garaadku oo ka sheegana waxaan dabcan dareemi karaa inay wax badan oo tusaalaha ka bixi karto sidaas darteed anigu hadalkaygu wuxuu ku kooban yahay soo dhaweynta iyo mahadcelinta waxaan rabaa laba eray keliya inaan kusoo koobo hadalkayga midda koowaad walaalayaal galmudug sida la sheegay waxay ka kooban tahay soomaali oo dhan
waxayna matashaa Soomaaliya oo dhan markaas aan leeyahay isteedida Soomaaliya oo dhan waa hadda ka jira oo federal extra dadka galmudug ku abtirsada ama u dhashay ama ku dhashay kulli waa degay sidaas darteed waxa la yiraahdaa galmudug waa aabaha federaalka Soomaaliyeed waxa hooyada federaalka qaadatay Puntland marka hadii hooyo jirto afar waa loo baahan yahay Soomaaliya dadka laaliyan galmudug qof kasta oo Soomaaliyeed matalaad uu ku leeyahay magac uu ku leeyahay soo dhaweynteeda iyo xafladeeda iyo wadajirkeedana qayb weyn uu ku leeyahay waxaan rabaa in halkaas uu gudbo soo dhaweyntii runtii waxaan rabaa inuu gabadhiga maalmahan magaalada waxaa ka jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal leh oo tartan ugu jira kuraas magaalada Columbus maaragtay looga tartamayo Soomaalida dhan waxaan rabaa inay ilaahdo dhalinyaradaas loo codeeyo ana la taageero waa mustaqbalka dhalinyarada gobolkan iyo wadankan ka soo baxaysa taageero yihiin aad iyo aadna waan kaga mahadcelinayaa mar kale xafladii sida sharafta looga soo qeyb gasheen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دوبيا وضع آدي ومهتنية رتي دوبيا وانين مرور بو اسكو حرا dhalinyarada siyaasiyiinta iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada marka aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xasilaya gudoomiyaha wuxuu yara carabkiisa oo soo kordhan saaxiibkay ayuu jeceelo sawirada quruxda badan caawa inaga qaaday marka odayga mar wajah oo iga dhigay magaciisa sidaas ma sheegay ayuu aad u mahadsan sax markana waxaan soo dhaweynayaa shakhsi kamid ah arrimaha bulshada u dooda community liaison Olashan Yasmin Farah Yasmin kusoo dhawaystay السلام عليكم وانا سلامي الدعيس عبصمة محاوي مانسك طبعا ديجي مانسك مكان صوغر ميوزك ما ديشي بالمحاوي يقولون قولنا كمي مامية لتن بوغشة لتحيبه ميوزك بانش انسوي وانا سلامي aad baa u mahadsan maantay inaan ka soo qaybgashay xafladani anigu waan waxa la dhahaa waan ka soo dooday laakiin magacayga aan baro magacayga waa Yasmin Farah aad baan u mahadsan maantay inaan meesha ka fadhinahay inaan waxa la dhahaa galmudug xaalig hooyadii dadlaan baa qaadatay أبينا وجلمدك وفرحات ناس مركب وحنا من عن كهل وحواي مكي جلمدك مكي لجهل جلمدك محيطها ليك بيمعها أدوك جنال شو كمين نقل يساميها مكلي جاي بعد سهل مركب مكي جلمدك لجهل بدنا محل ده وحال ده على كليه dadka oo habar gidir marka ma qashid galmudug habar gidir ayaa madax ku soo dhacay laakiin xaqiiqada galmudug waa dhul oo dad walba oo nabad sito ay degi karaan sama waa dhul oo horumar leh waa dhul lagu faano marka aniga aad baan u faraxsanahay inaad maanta office aad ka samaysateen Columbus Ohio aad iyo aad baan ku taageeraa aad iyo aad baan u faraxsanahay inaad office ku samaysateen haddana galmudug gobolkii aan ugu jeclahay ayaaba ka mid ah cawdwaaq oo ka mid ah dadka ugu horeeyaa bartay horta cawdwaaq mada aqoon runtii xaqiiqatan markaan ii sheego laakiin markaan inta imaaday
aan la kulmay dadka عضوة ضد wanaagsan oo dahab oo la heli karin oo aad iyo aad u wanaagsan marka galmudug waa dhul lagu faano waxaan u baahanahay halo ismaqal ma jiraan caaway maxaa la dhahaa ismaqal ma jira aniga hadlaya oo laga dul hadlayaa maxaa jiro halo marka waxaan sugayaa dadka xogayaa inay aamusaan meelaha rabaa inaan ka taataabto caawo madaxa ay furan caawo meelaha ayaan rabaa inaan taataabto calankayga ayaan sitaa maasha allah marka waxaa loo baahan yahay galmudug dadka degan inay gacanta qabsadaan ay soo raacaan taas maxaad ka qabtid dadkii galmudug ka imaaday inay gacanta isqabsadaan qabyaalada in la tuuro oo loo shaqeeyo wadanka horumarkiisa dadka horumarkooda dhalinyarada in lagu abuuro wadan jeceel in lagu faano inta qabiil lagu faani lahaa in lagu faano galmudug baan ka imaaday galmudug shacabkoodii oo gacanta isqabsadeen oo wanaag fito oo dariskoodii wanaag la wadaago maanta hadalkaan ii sheegayo ilama ahan inaad diyaar ku tihiin sababtoo anigoo hadlayo weli waa shirkadiisii diyaar uma tihiin laakiin waxaan jeclaan lahaa maanta maalinaan ahayn inaan galmudug lugahayga ku tago oo maanta waxaan ka hadlayo anigoo galmudug joogo inaan ka hadlo waxaan jeclaan lahaa maanta maalinaan ahayn inaan galmudug u dalxiiso oo dhaho maasha allah dhulkayga hooyo oo soomaaliyeed oo dadkii oo isjecel aan ku faanayno dhulka because kulligeen waan tegaynaa laakiin maxaa naga harayo dhulka ayaa harayo shacabka waa in lagu abuuro jeceel oo ku saabsan dhulka marka xogaa waxaan dareemayaa galmudug oo dadka galmudug ka imaaday horta galmudug anigu gobolkaan ka imaaday ma ahan laakiin waa gobol soomaaliyeed oo taageersanaya laakiin waxaan filayaa dadka maanta joogo galmudug dhab inay ahayn sababtoo waa shactiraynaysiin aaway dadkii dhabta ahaa oo galmudug oo garab taagan oo sugayo galmudug oo heesaha bambeenta intii la dhaafo oo shaqada runta la bilaabo oo galmudug loo shaqeeyo inta iyo xaggaba lasoo dhexno maxaad ka qabtiin had soo wanaag maan dhallinyaradeena inay ka baxaan tahriibka dhallinyaradeena inay ka baxaan qabiilka iyo qabyaalada oo lagu faano dhulka qof walba gobolkiisa inuu dhisan karo haddii maanta la dhahayo galmudug waa aabihii soomaaliya tad waa inay muujin karto soomaaliya إذا هذا بروحان بحشر طبعا مركز وحلها هذا كدوني ما يبينا عن كل بديو وحني لا قول قلبك قول أنا كرواني لجنا إن شاء الله خير يوحنا عاني بيت يا رجالي وطن كريم قلبك طبعا أبي طبعا هذا ما صدق ياسمين فرح والله ياسمين هذا ما كتير عاجز من الدريمنا مركب واحد جاري حلقي الرياضة ذي حمر واحد عن حلقي كالكلس وحين نجوا فنانين إنه قالية عقل يرى يا الفنان بيبشي أي نجوا سيدو قال صحيح كنا قال المدير أي نجوا سوينا هذا إنه لنا هاي دي جي غالي let's go
فنانيتنا أن نستعجل وأن نسمعنا سلام يفرح هذا يقوم اللي ينسون هذا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم رجل مدرسين أنا كل وقت غني ولكن بيمشي أمريكا كعصب عن سنة لنا سودو Welcome to America وسلام يا رجل أصحابتي يقولوا مرتدا قدوم ياشوا والسلام عليكم سبب فرني هبلا فرصة كل عام وهي سنة بكرة إن شاء الله نجد هذا هاي بالله عليك
محسنين فنانيتنا هذا حنسلاقي عجز كوي ذيك بحق فيها بس ياسمين بايدين سعيدة تضلوا حفلة سعيد بيبشي وإلي أقول إنه يا مولتي تالنتد وريرو قعداء هذا الفنان وينه جريدة نورث أمريكا كسو بيه هذا كسلام يا سعيد ganacsatada siyaasiyiintii weli waa inala joogaan markana waxaan soo dhaweynayaa shakhsi codkar ah jariida Columbus ay aad u wada taqaano waa saaxiibkii Saafi Geelle soo dhawo بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هو ما سنتين تدوين في صوت الكلام وحفلة قلمدود أفكاري أقول صافي جامعة جيلة لي هذا I'm from West Burma. وكفر أحسن هي عاونة في صوت الكلام هل كان دور سنة هدول قدام بيسنا وكنا نقولي قلمدود وانتقي waxyaalo badan oo aan ka soo arkay oo aan jeclaan lahaa caawa inaan message ahaan dadka galmudug ugu dirana waan hayaa taariikhda markii dib loo baaray galmudug dadka ka soo baxa waxay ahaan jireen dadka ugu taariikhda fiican taariikhda Soomaalida dad qiimo leh dad qurux leh dad sharaf leh dad magac leh baa aad u soo bixi jiray galmudug abtirsiimahoodu aad u fiicnaan jiray dadka waxna guda waxna kala ahaan jiray waa ku faraxsan inaan ka mid ahay shakhsiyaadka noocaas oo soo jeeda marka West Burma hadaad maqashaan West Burma waa rag geerida weey ma looda iyo ariga iyo maaha iyo looda iyo shuqulka ma laha aswa geero kaliya galmudug caawa مسج كان يدير لها أكان وقدر لها حوالي دور في السنة تجي نبض جليو والنمبر 1 رول ونراشة بني آدم كوبس كنتو كان بلعبته سو نبض جليو ده هذا كل ده شان أو تذكر السيسان أو فهمتها نراشة خليك يوم النبض جليو ده يهي واحد ينكلم على فوق قلبه ما تعرف تراجع لها waxaad xooga saalaasad uga shaqeyn lahaydeen ku abaabuli lahaydeen isku aadi lahaydeen aadna u hirgelin lahaydeen nabadgelyo system ah oo idinkaga shaqeeya ee galmudug haddii aad tihiin qiimaha ugu badan oo qofka bini'aadamka uu leeyahay waa marka uu haysto nabadgelyada ilaahay baa macnaha raalli ka noqonaya aadama iska badaaya ka shaqeeya saad iskugu furfurnaan lahaydeen xiriir wada samaysan lahaydeen ganacsi wada samaysan lahaydeen waxbarasho wada samaysan lahaydeen haddana koobka gobollada baqaadeen oo galmudug ugu soo orod maaha marka meeshaas wax badan oo qurux badan baa ka soo socda taalantigiinni iyo sharaftiinni iyo cindigiinni iyo karaamadiinni iyo quruxdiinniba waxay ku soo noqonaysaa kuna jiraysaa kuna joogi doontaa haddii aad ka shaqaysaan nabadgelyada waa very important weeye halka message oo ugu dambeeyo diraya waxaa weeye haddaad tahay xildhibaan reer galmudug haddaad tahay xildhibaan reer galmudug oo federaalka ka tirsan واجبك كوبادا كسارا معها إن أتشوف الحمر إن أتكلم تجريسي بيتشك إن أضمن نبتجليه ذا يعروت هذا كليه الفكرتين لكن وانا الفكرة صدق وقولنا الله الدجاج يمشي على كتبه يدتك إهل كهو هذا شيء ولوك الدجاج صادق شقين له نبتجليه ذا وذا تشركه ذا تاس أيها واجبك استحضار وصار بيتشك عدالة تانا ما كاسو حرار كل قرية وهذه أولاد الله فعيا هذا لكن حمل اسكتشوفته هوتيل اسكتشوفته من نيروبي جوزي أما قربها وريسي I don't think إن هذا شيء وهو نكسر عليه وفاعيا هذا أولاد ممكن كاوارة تنا نجح على صوّع النهارون كاره القرآن سارة ويا أديك بكوارة يدمي إسلامي But that's the message كانوا قلت لي يقولوا وإذا حسنتين thank you very much. أدو ما سيها يقول لك حتى أنه حفلة
shakhsi dad badan ay wada sugayeen inuu nagu soo biiriyo mid ka mid ah musharaxiinta siyaasiyiinta sharaxan walaalkeen cabdirasaaq diini ayaa soo dhaweynaya cabdirasaaq soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا دمانتين وسلامتين وفوليبا روح وليبا وحكو سلامة يا مقعة يمنصب كوكو فرديو سلام كدب وحفلة يا حفلة أنه كان اسكوكو نمت وحاوي عاوة وقوشي دولة قبلات قلب مدد أي كاكا علي عيارها قبلات ويكبو لستي marka aza min reegal muduga waxa weeye waa wax mudan hambalyo iyo taageero hadaan nahay jaaliyada reegal mudug ee Columbus Ohio aan idinla kaftamo reegal mudug waxa lagu yaqaanay rag maxaa la yiraahdaa faraha ka ciyaara ama farafud balse hadda lagu helo waa ku darsanaa سعيدنا وشوشين مينو انت كدب مقعيقو وعبد الرساق ديني بلسكو مقعدين عبد المالك وحانا هاي مرشح وتاقن حلكة دقمة السدحات قبل كانوا هاي ولا ليالسا دكسونتين election key is fast approaching دورشدو ونوسو دو ده هاي hadduu ilaahay yiraahdo waxay bilaabanaysaa bishan aan ku jirno 22 bisha 22 waxa bilaabanaya early voting registrationka waxa ka haray malaha less than 2 weeks 20 ka bisha ku tahay marka fadlan qof waliba oo degan degmada saddexaad gobolka Ohio oo aad garanaysaan ama halkan jooga caawa waxaan ka codsanaynaa inuu isdiiwaan geliyo haddii aanad isdiiwaan gelin tan ma codayn karaysid. So anyone who is here who lives in District 3 or anyone who knows someone who lives in District 3 fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad qofka diiwaan gelisaan ama aad diiwaan gelisaan si aan ugu codayno doorashada soo socota ee bilaaban doona 22 bisha February maalinta ugu dambeysana ay tahay election day March 19 inta kadib saad ogsoontihiin walaalayaal degmadan aan deganahay degmada saddexaad ee gobolka Ohio isbedel bay u baahan tahay sida dadka qaarkood aniga waxaan unlike sida dadka qaarkood waxaan aaminsanahay qofka in lala xisaabtami karo yani xukunka ama masabka cidina lama dhalan waxaan aaminsanahay qof waliba wuxuu galo ama wuxuu geysto in lagu abaalmariyo qofkii wanaagsan dadka soo doortay ama kasoo u wanaagsan tan waa lagu abaal celin karaa in marlabaad loogu celiyo ama la doortaba balse qofka aanan kasban abaal ama wax dhigan waxaan aaminsanahay this is a democracy ruux waliba in la tartamo ruuxii degmadan maxaa la yiraahdaa wuxuu geystay iyo ruuxan wuxuu geystay iyo ruuxii wax u sameeyay ruuxan wuxuu sameeyay maalinka ay election ka timaado in lagu la xisaabtamo oo la yiraahdo waxaana ka gaabsay waxaana diyaashay waxaana ka gaabsay sida daraadeedna qofkaas lagu la xisaabtamo the ballot yani gacan iyo waxaas halkan kama jirto qofka waxa lagu la xisaabtamaa waxa weeye waa ballot anigu waxaan aaminsanahay unlike sida dadka qaarkood inaan ahay nin qabsooma inaan ahay nin community u qabsooma u qabsoomi kara masaajidda u qabsoomi kara culimada u qabsoomi kara go'aanka aanan qaato aanan ku madaxaqeen wixii go'aan masiiriya oo saameyn kara bulshadeena inaan dadka iyaga wadaadadayda culimadayda masaajidda kula soo laabanayo ee aanan noqonin I know it all يعني سيدي كليتيلي ونقمو يرهدا أنيقا سميي أنيقا حقا محالي قوان صدي قوانكا وحنا مسانا هنا ومدلين نحي مركا تنوود دنبيسون كهذا وحاوي ولا لي صادق تيمبر سنة بسنة كدن بيسا وحسوب بدنيا دلنتهن
dhibaatada ka soo gaarayso overdose ama daawooyinka sida khaldan loo qaato sidaan ka warqabtaan gobolkan Ohio sanad waliba waxaa ku dhinta 5,200 oo ruux oo u dhinta daawooyin sida khaldan loo qaatay yani arrinkaas waxaad moodaa haddaan nahay community-ga halkan caawa isugu yimid inaanan ku baraarugsanayn marka arrinta waxaa looga baahan yahay inaan ku baraarugno masaajidda inay ku baraarugaan waalidiinta inay ku baraarugaan waalidiinta inay saaxiibo ka samaystaan awlaadooda wixii noloshooda ku soo kordha inay la socon karaan qofka ma bilaabo dawooyinkan la yiraahdo opioid crisis ama sida qaldan loo qaato wax overnight ku bilowda maaha qofka waa wax yani tashkiilin ku socotay oo soo in muddo ku soo socotay ama uu soo bilaabay marka waxaan kula talinayaa abshir Allah rabas waalbaanahay waalidka inay ubadkooda asxaab la noqdaan inay dhiirrigeliyaan inay nafsadooda wixii ku soo siyaada ay la socdaan aakhir marlada waxaan rabaa inaan hadceliyo gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee gobolkan Ohio gudoomiye ku-xigeenka dhammaan inta ka soo qayb gashay bahda saxaafadda waxaan idin leeyahay gidigeen waa mahadsantiin kulli kooxaar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أبو مهندسية هاي وضعي عبساق ديري مركنا وحن وجلعنا حقا إلى اليرد حجر الله أنا هو شخصي عبد الله تقانان نتكمل إذا هالدورك اليرد الصوماليين كولومبوس نريق البدوغة ومر والبابا قتاقن تورعات تذكيني الصوماليين سيد سحبدي وحكو عام بهان أرمها كاو وشكا ولا الأقري وصاحب كان عبد الفتاح سهل The President, welcome. السلام عليكم وخيارتا والسلام يا قدوميها ومحيانك تكسب الحفلة كلكم باسنتين وحكم السلام عليكم ديري السلام عليكم صحافة يوم تعودوا تقدمك إن شاء الله hortagow waxaan rabaa in meeshaan waqtigiisaan kan dagaalada sukeeyo hadda gobolka ka soo cusboonaaday maan dambe iyo dhibaatooyinkaas sidee laga rabaa inaan baaqna ugu diro waxaan kaloo bogaadinayaa odayaasha iyo dadka qurbaha joogta agada in maqniciba bogaadinayaa dadka baaqna dadka ka wada odad badan oo kala iska dhigay jiraan oo hordo u yahay in oday oo magaalada jooga liyaada Muuse Cabdulsaad oo hadda xagga jooga oo gobosha fidiyay waxaan ku soo istaagay inaan koob markii hambaliyada iyo gudoomiyaasha dadka aftoona ka bacdi waxaan rabaa inaan markii halkaan aan dadka ummadda Soomaaliyeed ugu baaqo in aanu ka xubin ka ahay campaign-ka xasaas diini campaign-ka meel fiican ayuu marayaa haddana asaga hadda markii ka daba hadlo waxba ii taray aniga laakiin waxaan rabaa inaan wax ka hadlo هذا هو حاجة معناها كومنت وصل لبنان ولا هي محل كتما يا كرسي الصومالي وفنية يوقف الناس من الملاك بذكرها مركز معنا ترى بقولنا حين خطب الذكريات كيجا هرتكو أنا باشا نشوف شيء اللي بانك كرسي وفنية صومالي كليم وراعينا وراعينا إن كوين بعيدا أنا عضو المكورة ده كويني كبعد أنا وقتنا كقعد الواجب السنوي أو مثلا كرسي إنه مثل كرم وبعدين مركب قف Soomaali wuu jiraa ana Soomaalida muuqaalka kaliya ma ahan waxa weeye baahida ilmuhu qabaan baahida hooyooyin qabaan dhibaatooyinka duufaanada soo ka socda qofkaan mana la wadaagaya ma la wadaagaya markii loo baahday ma macnaha ma yahay dhaga nuulo markii shaqada oo maanaya soo qof dhahaya ana madax adag oo aniga macnaha wax ma sheego haddaba waxa la intifaaciso hadduu igaar madax adag yahay annaga ka madax adag annaga وعارف أنا شيء وصو وعارف أنك عادي يارك إنتو كفني كرسي حال سينجل بيل حال بيل وضدك دقن مجتمع دقن يعني كنور يعني سيرتري أنفع يمكن تسوى حال بيل حدو عداني هاي حدو مدوي هاي ثم كان حالتك أنت جن وراسكم باهي حال بيل وأنفع هاي موسو كنتني تازو قادر
واسدي مقالة ربنا شيء وصو وحاجة survey السوبي أو قلوين كان ضدك دوقة كلا سوبيان وصل دورتين survey وحوصو عديان وقول كي بس ديتن يشان ضدك حافظة أنت كان إسكنا أنا ما يجي قانا حتى وجه سبيه قانا وقوسو فنيا مركا خياري ضدك نوع عصو كنا يا ضيق لبنا وحارة كان كعديو ولا ريالو حتى أختي دين الوجين المهي إن التجارب فريرة أو عربة وسوق هذا وجيت كستله وحالو صدق مرة يعتقد مقال كنوعك لكن شو كانوا يقولها يعني مرة على الأول هذا وصل كمان هذا مع وضع الواجب الحلف وحلف ونقرأ يا أنا وقريمو هذا كلام مني أنا مش عارف أجينا أنا مش أنا قريمو حاولت أجينا ولا ريالو وأنا قاعدين أنا وحاسبين قف كست واجب السعر وحوي إنه أسوي سلف هو وأسوي ورتكو قف كذا قبليه وإنه كان صدره هذا هو قرن صدره هو قرن شيء صدق كصعد تذكر الجوع بالشو ومش الله مو المها وهيلي وانا قضاء ديني وكم عندك مسرار هذا ما سيعني افتح سهل It's gonna be the next مشرح عفلية مركا waxaan haatan soo dhaweynaynaa siyaasi aqoon-yahan Soomaaliyeed ee reer Columbus aad uga muuqda waa mudane Xuseen Qurac soo dhawo mudane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين runtii galmudug haddii qof sheegan karo galmudug dhab oo galmudug ku dhashay ku koray ku dhaqmay oo aniga oo meeshaan jooga oo aniga iga mudan ma garanayo anigu galmudug hadda waxay ku dambeysay last year runtii waxay maraysaa waqtigii ugu fiicnaa 30 sano u dambeeyay waxaa ka jira dawlad walba dhalin la'aan maaha laakiin dawlad waxaa hadda ka jirta galmudug dadka reer galmudug oo dhan ay isku waafaqsan yihiin ma arkaysid qof reer galmuduga oo ku dhahaya madaxweyne qoorqoor madaxweyne nooma aha ma arkaysid qof ku dhahaya cali ciid madaxweyne ku-xigeenku madaxweyne ku-xigeen iima aha taas anigu waxaan aaminsanahay maadaama aan galmudug nahay ka hadlayno inay tahay wax loo dabaaldego 30 sano ka bacdi in ay galmudug ay haysato maamul dadka galmudug oo dhan ay ku midaysan yihiin taas waa mid ciyaartii hadda u dambeysay gobolada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay muujisay sida ay galmudug u mudaysan yihiin oo ay markay timaado magaca galmudug in la difaaco ay ugu midaysan yihiin waxaa tusinaysa oo caddayn weyn u ah ciyaartii finalka ahayd oo stadium Muqdisho ay reer galmudug taageerayaasheedu ay ruuxeen marka waxaan inta meeshaan fadhiya ka codsanayaa in galmudug loogu sacabiyo weliba sacad qaylo dheer oo arrintaas ku saabsan taas haddaan taas uga gudbo walaalayaal saaxiibayaal Soomaaliya waa lagu soo duulay waddan daris ah oo Itoobiya la yiraahdo ayaa wuxuu sheegtay inuu xoog iyo xeelad uu ku qaadanayo xeeb waddankaas waxaa daris la ah Eritrea Ethiopia Soomaaliya Djibouti Yaman oo dhinac ka xigta iyo South Sudan iyo Sudan
intaasoo wadan oo intooda badan ay bad leeyihiin ayuu wuxuu ku dhiiraday baddii xoogga iyo xeeladda lagu qaadan lahaa inay tahay badda Soomaaliya su-aasha isweydiinta badan marka waxaa weeye Soomaali ma waysan ahayn Soomaalidii Axmed Gurey iyo Sayid Maxamed iyo Siyaad Barre iyo General Caydiid iyo muxuu ahaay halgamayaasha taqaaneen ay ka dhasheen ma waysan ahayn oo lagu yaqaanay ina badeeda iyo dhulkeeda ila guriyeeyay iska daayay ma waxay ka liidataa Eritrea oo 5 milyan ah Abiy Ahmed uu ku dhici waayay inuu badooda guriyeeyo oo xoogii iyo xeeladii uu sheegay uu la aad laakiin Soomaaliya uu ku dhiiray arrin marka waxaan qabaa si arrintaas cawaaqib xumo uu kula kulmo Ethiopia iyo Abiy Ahmed waa in dadka Soomaaliyeed ay midoobaan dawladooda ay taageeraan ugu yaraan khasaaraha ka soo gaaray Ethiopia waa in rejiimkan Oromada oo iskibriyay oo wuxuu sahayn ismooday waa in meesha laga saaraa waxaan aaminsanay Oromadu dad masaakiin ay yihiin waqti badan la dulminahay haday wadanka Ethiopia ay maamulaan nabad lagula noolaan karo waxaa marka soo baxday Oromadu inay yihiin doqomo aan wax maamuli karin cadawgooda iyo saaxiibkoodana aan kala garanayn oo isku dayay Soomaaliya inay xoog iyo xaalad iyo dad lagu soo yaacay ay ku qaataan marka waxaan soo jeedinayaa dawladda hala taageero Ethiopiankana waa inay eedaan guriyada badeena dawladda Soomaaliya waxay ku xirtaan حسين قراء عاد بأمة هنسية هاي عاو كلنا هاي ماذا حي نفرن ولكن بريك بقى قادر لنا الفنان عاقل يرى هي نوصل لابنيو يا محمد بيبشر سودوان يا
حقيقي وادب galmudug yaa gaari kara sababtoo ah waa gobolkii gobonimada Mabemba reer galmudug jawaab idin kama hayde waa gobolkii madaxdii Soomaaliyeed ay ka wada yimaadeen gobolkiisnimo ku caan haatan waxa diiwaan ku galay galmudug inay qaadeen koobkii ciyaaraha xabadu kii kuma ficnaa xagga sportiga waa ku fiicanahay inta waa kaftan caawa xibladan شخصيات بينو سورتي قليل واي فرمودو يهين فوض عدى مدن فوض عدى قدومية أيوب عبد القادر تهليل يقدوميها جالية الصومالية دي قلمدو مدن داهر علي عمر داهر علي لوح هذا تنوح ينوحي قدومية أيوب عبد القادر تهليل أجعل لها إن قدوميها تستكتان واي نوضا صرف النوع وجعل واليها نفسنا بدون يسودوا بيجي بسم الله مدحوينها
فدرالك الصومالية مدن حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء دولة فدرالك حمزة عبد المريم ضمان golaha shacabka heer federaal ilaa heer maamul madaxweynaha degmada degmooyinka dhammaan heer maamul madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor madaxweyne ku-xigeenka daanaciyey ilaa heer maamul degmo gudoomiyaasha caawa meeshaan fadhiyo cawqaasha salaadiinta hooyooyinka gabdhaha iyo wiilasha والسلام قفل من يعيسي مقامكم كفريو صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكتب وحعاو شرف وليا مركزي لبعض انا وقتي مركز كسر الموضوع انا وصير وصلنا جديد جلودك ستيل فوهايو كولومبوس intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan qof kasta oo halkan joogo iyo inta maqan doorkii uu ku lahaa meeshaan in la soo gaaro waxaa ogtihiin inaanay howl saaran ahayn waxaa ogtihiin inaanay hal qof ka goyn waxaa ogtihiin dhibaatada laga maro ummad walbo masiirkooda xafiis loo gordhigayo intaas kadib tiimkii igala soo shaqeeyey oo maanta halkaan aan soo gaarsiiyey magacooda iyo maalkooda iyo maskaxdooda oo ka bixiyo waxaa leeyahay waa idin shaqaysay kusoo dhawaada oo ujeedaan caawa mar labaad iyo mar saddexaad shakigu horta waa iska badanyahay adigoo wax fiican qabtay dadka sometimes macnaha waxay u dhigayaan inaad waxba qabanaa laga soo qaadaa sheekeyada kaaga sheekeynaya hadda kahor nin baa booyad lahaa booyadda markuu wuxuu u dhiibta darawal wuxuu ku dhahay booyaddan igu shaqeey ninkii uu ka shakiyey marka xoogaa deenna uu ku lahaa booyadda gadaal wuxuu ku qoran niyo nin weyn baa tahay dadka lama qiyaameeye xoogaagii yaraayo lagu lahaa iska keen ninkii qoraalkii arko wuxuu dhahay wuxuu ugu jawaab xagga hore asagana wuxuu ugu qoray waana tuuntee wallahi naga tahay marka sideedaba tuunka horta wax fiican maahan sheekadaasna wax kala caawa personal ma wax kale kama sheekeyneen adigoo wax fiican qabtay oo community u shaqeynayo dadka ay ku dhex jiro aniga hadda habeenkii badanaa habeenkii shaqeeyaa muhiimada marka anagoo habeenkii shaqeynaya dasanta maalintii community isku xilibadii badanaa wadankii iyo meesha aan ku noolnaa maanta soo intaas qof isku darsanay hawl yar inuu hayo macnaa ma ahan soo maa intaas kadib haddaa halkaas uga tago waxaa la xasuusinayaa taariikhda dowladnimo ilaa 1960kii markii aan xorriyadda qaadanay dowladdii rayidka ahayd oo doorashada ku dhimaatay 9 sano markay shaqaysay kadib 69kii ilaa 60 iyo 1991 dowladda military aa waddanka ka arriminaysay oo macnaha dowladda hadda maanta aadka loo xasuusto waaye ee dadku u xasuustaan ay wax ku barteen qof looga sheekeynayana ma jirto dowladda military qaabkay u shaqayso waa amar ka soo baxay madaxweynaha in la suurtageliyo ama la sameeyo janankii loo dhiibayo kala la sayiino macnaha amsoogaasaaja smisl soomaaligii so xukunka marka micnaha kalaya waxa waaye from to madax sare to askari dad si jilicsan loo tababaro maa soo soco ilaa 2024 maanta taagana marka waxay saaran 4.5 federalism dadka marka wax kale kuma wareersan waxay ku wareersan yihiin waxa ahaa jirnay ku wareersan yihiin marka aniga muhiimadeedu waxa waaye waxa ahaa jirnay waa ahaa jirnay maanta maxaana xagga u socnaa qofka bini aadamka hortiisa taariikhda horta waa wax qoran waaye waa qasab taariikhda mar walba waa qoran tahay wax laga tegi kara miyaa taariikhda waa qoranta marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaa kula dardaarmayaa inay iska ilowaan waxa ahaa jirnay maanta waxaa nahay iyo meeshaa beri u socnaa sideeda wax kasta aragtid waxbaa ka dambeeya in feasibilityga qofka bini aadamka ah haddii uusan ficilku dalibu banaanka uusan keenin
waxba ma shaqeynayaan marka wax walba oo lagu daro feasible laga dhigo oo wixii macnaha ficil lagu daro way shaqeynayaan marka qodobkii ugu dambeeyey waa maasantiin ilaahay maanta soomaaliya uma saweynin dadka inta seexdaan subaxii soomaaliya washington ah ilaahay horta uma weyn inuu oga dhigo ma fahamta إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قفك بالعادة كأهل الله أسجل نفسي سوى الدلو قف بذلك معه أسجل بذلك قف كان من ذلك مركو حالكم تعبوا يا فلي وكتبهم قلبك مستقبل كذا وحكى السوء والأكسن يعني كوضع الشقيق وحكى السوء عقبتكم أنا إنا كمدونا دول دفاع كصوماليا wax kasta oo mustaqbalkeeda ku taabsan inaan ka wada shaqeyno wax kasta oo caqabad ku ahna kelmadana waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad sharaf ay tahay inaan kulankan qaraxdan ka soo qayb gashaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh دنيا يوم halkeedii buu dhigay runtii xafladii ugu horeysay ee xafiiska galmudug lagu daafurayay qayb inaga mid ah oo badan halkan waynu wada joognay markaana waxaa laga hadlay muhiimadda ay lahayd in jaaliyadda Soomaaliyeed iyo tan galmudugba inay midoobaan oo hadda gudoomiye ayuu ka hadlay midnimaduna waa shay qaali ah gobolka galmudugna muuqiisa iyo magaciisa mar walba cid bedeli karto waa jaaliyadda cod dheer bay leedahay maanta waxaan aaminsanahay masraxan wixii laga sheego madaxweyne xasan sheekh madaxweyne qorqor iyo dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed inay maqlayaan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed ee wadankii wada jooga waxaynu u nahay iftiin jaaliyaddu mar walba wadankii دخل بيكون إنسان أقول بيكون إنسان فكرة بيكون إنسان مركو حنا هنستنى هي دين بدونه إن ودن كي أنا وحكي بدل كرنو عقبضها قلب ذو بهاي بدهان صوماليا إن وناك بدن أنو كسو كردين كرنو مركا أصحابي عاو مدح من وذو بريا مسيح أنا كلمة بريا مركا روتي xafiisyada jaaliyadaha dad inaga soo horeeyay jira wadanka yimid haday noqdaan jaaliyada Irishka ama Talyaaniga ama tan Israa'iilba codkoodu mar walba waxay ku muujiyaan dadka ay doorteen inay la xisaabtamaan waxaan aaminsanahay inaan wax weyn ka bedeli karno saaxiibtinimada Mareykanka iyo Soomaaliya iyo saaxiibtinimada Mareykanka iyo Galmudug ama haddii ay noqoto Ohio iyo Galmudug marka mid aynu ka shaqeyno dadka aan dooranay kuwa Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahayn aynu kala xisaabtano macaayadaha wadanka ku yaala iyo magaalada Columbus macaayado weyn ayaa ku yaalo haddii ay noqoto caafimaad iyo haddii ay noqoto waxbarasho aynu ka fikirno mar walba sida aynu soo xirnaa macaayadihii Dhuusamareeb Cabudwaaq Galisoor iyo dhammaan deegaanada Galmudug ku yaala sida aynu soo xirin lahayn marka taa waa mid وعجل الله تحكي ديجي غالب بالشعب كله ترنسيين عليه كلية مدحي فرنينو لما أنتين مدحي نودو فرينة هسا هينو كل صف I'm
intaa waxay madaxbanaanshaha loo wada islan yahay inaan dhalinyaro aragno haatana waxaa inala jooga siyaasi aan isleeyahay codkii ugu badnaa qof Soomaaliya Mareykan hela inuu helo ogahay farxaan uu ka xishoon doonaa arrintaa balse laakiin wanaagga qofka waa in la sheegaa waxaa inala jooga siyaasi weyn haldoor jaaliyadii Soomaaliyeed u soo baxay mudanaha farxaan jeyte ayaan masraxa ku soo dhaweynayaa mudan soo dhawow شكرا ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو أنا محاربة إنه ما يدعي إلهي سكاي كاني فرصة أن السيري أو وجود بالدقيقة دخلك كلمة هذا بس أنا أقنعي ودوان المصاب تهدي أن ترى لنا وأن قوة لنا مسؤولية بعد صار مسؤولية سواء إن أهي لنا ودن كان نبي أنا كنت أحب أقابل نمو أمي لكرنا لكن سأتوا أمي لكرنا وحاول فامل كسا أو قف كسا أو مسؤول أو ريرله أو صاحب له إن وقف كسا كبر رشيو إن وإزدوان قال يصير عد أو قد يبتدور شوي كودن كان كدع سواء يفائدة لا وحاول أما هرمرك يكون قالن كوميدي ذكر ودن كسا وحاول لي دياسبريدس قوة وحان عاد بنعرض علينا ودن كساد حكيمة مال مرتقى الارتلاف بالدقايا مانتي مال تاريخي بيوحي وحي تصالة كنتان وجاليد الصومالي جاليد الصومالي وحي وباعنتها إنا يسبحي ستو أو مركي نقطة أضي أي دلتو لكفكران مستقبل كذا كفكران وأنا جاي وده كانوا كلي لا بحسبي أنا وشخصيا قبل كام بعد مركز المراد أو شو أو دي تعال ما لا سلسلة ثانية لكن وحالهما إن وقف كستا ودوان قلي عل كستا صاحب كستا وكبر رجيو عن قيد عن كنا قلنا السياسة لها وده كان خدعة أما أنا قلت هير ستيت أما مجال أما الدقمة أما حافظية لكن قف كستا حق بقولي وأنا اللي سوحنا عنه إن قف كستا قيموي كقال وحرم عاوي إن هاوش حتى سكون ما دي بقول نقدر أن وجوهم بليه حفيز كأتا لغفري قلمدوك وحاوي يعني قلمدوك إسراع له سومالي وإسراع إسراع dadka galmudug ka yimid ama isfahaystay oo hawshaas isku dubritay waxaan rajaynayaa inay yihiin dadka ugu furfuran ugu canaanta furan ee Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa guul iyo khayr mar kale hambaliyo waxaan fiirinay in la xiisin karo markana shakhsi dhamaantii baa wada sugayseen waa gudoomiyaheenna waa gudoomiyihii jaaliyadda galmudug ee gobolka Ohio jeclaan lahaa inaynu wada istaagno salaan weyn inaynu si sharfaysan sharaf weyn uga wada yahay gudoomiye daahir عمر داهر على له مدن سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا يارتا ناشد سوتي بقول ما كرامي سيديو تبي سيد مقعد سنة السلام يا فعيبوا ودان على عمر وحياوي يربع معنا الصحة قلت لك هو رئيس معه الجوبية ومعه كولومبوس وهاي من وانترناشنال ويقال له كل مشوك أدوك مالك وكل
waayo qorshayagu ma aha inaan reer galmudug kala basjoogo isku duuno qorshayagu waa inaan galmudugta qurbaha joogto oo isku duuno gadaalla markaas ula noqono fikirka iyo qabadkii caqliga iyo hoggaan awogeyn hal arrin baa galmudug shaa waxaa arkay markii ciyaari gacantaan saan leeyahay ma fahamsanayn marka haddaa isagoo qoriga ah ka haalayo marka intaas waa galmudug markaa ka helnaa hidanaynaa marka haddii aanu qoriga akaha ku fiican nahayna wixii kalena waa ku fiican nahay marka waqti badan baan muruq iyaga isticmaalayna reer galmudug hadda baxdagana isticmaalo weeye inta aanan aadin reer galmudug waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka ka soo qaybgasheen anigu haddaan reer galmudug nahay halkaan waxaa taagnaa nin u ordahaya district 3 ama xaafadda saddexaad ee stateka ohio cabdisaaq أحمد وعبدالمالك لو يمان عبدالمالك أنا كنت ذاك الجلد من هو كل دور سجلني وقف الصبح الولي شغله يبغى كنت شايفين هنا ولي هراء أنت شايفين ماشي عربني ما آدمين وكسر فدعان marka adiga baa cusub hadda adiga aan ku tijaabinayna hadaalayno adiguna hadda shaqaysan wada 2 sano ka bacda ka codeyn doona reer galmudug hadanahay iyada waxaan maleeyaa reer galmudug cid aan la dirin wala dirin marka iyada waa la taageerina hadaalayno marka inta uga baxo galmudug horta galmudug aan ka hadlaynaa waa tahay galmudug maxaa ka naqaanaa dadka Soomaalida galmudug markii laga hadlo hadda meesha heesahoodii ceelbuur iyo xaradheere iyo caawuwaaq iyo bay sheegayaan galsoor iyo cadaado laakiin galmudugta anagu aan wakiilka ka nahay intaas way ka ballaaran tahay sida ka warqabno Soomaalida waxaa la diiday qof hebel meeshaas uu ku dhashay oo qof walba meesha ku dhashay tan laga kaxeeyay baa waxaa la yidhi u dhashay بالهبلئي وهم البؤر شيء ذاتك مركز قلب البؤر شيء معها انت كريم شوكتا انت هذا الاترين رب البؤر الى وحبار قلابي الى بلد ويني انت مركز قلب البؤر هذا الجن لقب العبو لطنه هو يلا قصوا بالعبو الى حتى تسمع الروح تقول قلب البؤر في السلام الجن laga bilaabo boholgaras oo dhaxaysa luuq iyo baydhabo halkaas laga bilaabo ilaa garilay meesha la yidhaahdo diif oo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya ah ilaa iyo halkaas iyo Kismaayo markii la tago intaan dadka galmudug waxaa degan meelaha markii yaa u dhashay galmudug la yidhaahdo dadkaas baan wakiil ka nahay haddii alla idmaan waxaa rabnaa inaan xoogooda xoolahooda xigmadooda inaan intaas midayno annagu ilaahayna kaashanayna dadka ka yimid oo fircoona la shaqaysanayna aynu la shaqaynayna intaas haddii ay isku daro oo intaas isku darto oo midowdana hadda Soomaali inteeda kale waa iska meelaha baa soo haraya hataa goboladan bay iyo Bakool iyo Koonfur Galbeed وحتى يكون شبوين كان كميدي ودرس بملايين ودي ضد لبران أو كمل قوة الدولة دينه أو مروا بالصومالي لقرن ما يدلوا يا كمل معهم وضد الصومالي وكريو مركز ضد كاسبان وهنا إن أنه مدينه هو جود معنا مركز مسلم ورابع محلي سنة كوراء يدوم بيسي سيدات الياباني يدوم بيسي الجدود أيضاً بيسأل وكور قضايا ولنا سوفيتا وعيادان أرواح حاجة حقو شاكيب سيبا أنت تشوف مركا halkaas baa joogaayo dadka uma kamid ahay oo wuxuu qabad iyo dhib iyo leeba ku baan kala naxariistay iyagu ninkii raagaha la hadlayaa ahaa inkastoo rafiiqnaa haddana aan ku wada joogin raabtaan ku kala qaadanaa raaxa iyo riiq halkii lagugu riday iyo qabriga waa rumaysnaaya amba waa u soo rooraya laabtii raagmada marka halkaasaan ku kala qaadanaa inkastoo kala fognahay riix iyo raaxada halkaasaan ku kala qaadanaa annagu marka haddii aan soo qaxnay oo naftaan jaanis u helay inaan nafteeda la soo cararo wadamo shaqo iyo nolola nimid hadda
hadda qaxootinimadi laga baxay ciyaalada halka ku dhashataa wada ka baxeen aabbayaal iyo hooyo noqdeen anagu ganacsato iyo middle class iyo dad nool dhaqaal haysan noqonay waxaa la gaaray waktigii aanu inta dib u fadhiisanno aanu oran lahayn dadkii aan ka nimid aanu gelinno wixii aan baranay oo ama qalin iyo buug aan akrinay ama experience hadlay xikmada hore adduunkaan aan ku aragnay reer nolosha duwan inaanu wixii aan hayno xoog iyo xoole iyo aqoonba isku daro inaan dadkii inta kula noqonno dhibaatada lagaha ugu badan oo meesha ka yimaada waxa weeye hebel iyo hebel baa maanta kuwa islaynayay maalin walba laba reer baa isdisha maalin walba hooya ooyeysa maalin walba wiil 20 jir ah dhimanaya oo wuxuu dhintay hooladii inaan aqoonin marka inaanu xoogeenna idhaku dib u fakaro inaanu dib u noqonno oo dadkaas wixii aanu ku kala celin karno oo ama dhaqaalaha ama aqoona ama sharci ah inaanu samayno weeyo qorshaha noogu muhiimsan oo aanu galmudug hadda boorka uga jafnay waxaan u malaynayaa galmudug intaanu waa kule goboladii galgaduud iyo mudug la isku oran jiray waddankeeni soomaaliya baa xaaladiisii saas noqotay oo hadda dadkaan meesha fadhiya inkastay reer galmudug yihiin intooda badan dhallinyaradeenna markaad meel ku aragta mid waliba xarig buu gacanta ku wataa xarigaas waa calan gooniya uu leeyahay oo reerkoodii calankaa iskale oo loo sameeyey calan naloo sameeyey oo federal ana ku yeeran shuruuc aanaa qoranin 25 aanaa la imaanin oo qolyihii dowladda laga burburiyay ay noo sameeyeen baan weli ku wada fuurtaysannahay anigu dadka muddo dheer ka dirirahay baan ahaa dowlad goboleedyadan uguna yeera dowlad qabiileed laakiin reality aan faysgareeyey oo wixii meesha ku socota haddaan inta u raacan ama wixii ayada ku dhex hagaajinin dibad allah hadshufaysaa marka inaan inta galmudug oo aan aaminsanahay haddii dhinaca fiican loo isticmaalo inay wax bedeli karto inaan inta ayada iska aqbalno oo dadkeedii isu keeno oo siyaasadeedii iyo dadkeedii iyo dhaqankeedii midayno oo horumarkeedii ka shaqayno markaasna soomaaliya aan ku baadi goobno intaas baa noogu muhiimsan oo aanu hadda u yagleelnay galmudug waadna mahadsantihiin hadalka intaasa kusoo gabagabaynaya ilaahay waddankeennii aynoo badbaadiyo dhibaatooyinka hadda markii doorashooyinka la gaaro weligeedba dowladdii hadda ayuu ka hadlahayay oo 60kii oo dadkii soomaalida soo gaaray dowladdiisa maasuqa loo yaqaano oo ahaydba midda balaayadana daba socotaa naga soo raacday laga bilaabo ilaa haddeer xilli walba oo doorasha timaado dadka soomaalida wuu islaynayay hadda midkii ugu dambeeyo 68 iyo dimuqraadiyadda qaarkeed u ooya iyo hadda waa naga burburtay 41 qof oo Soomaali ah dhimatay oo ciidamadii waddanka laayeen iyagoo kuraasta goobaya mar walba waxaa marka dhaqan noqotay xilligii doorashada la gaaro Soomaalida dhiigeed u daato waxaana keenay markii aan dowladnimada qaadanay Talyaani oo nala joogay baa nidaamkii qabaaliga ahaa oo duurka la isugu leyn jiray wuxuu u soo raray magaalooyinka dowladdiina wuxuu geedii la kala dhici jiray dowladnimadii uu ka dhigay ilaa iyo maanta sharci aan aqoon dad Soomaaliya oo markaas ama Ingiriis yaqaanay ama Talyaani yaqaanay ma jirinin wax loogu yeeray dastuur oo luqadaas ku qoran baa naloo keenay asagii baanu ku soconay markii militariga ahaa ee markaas dowladda qashaamid kala sameeyey haddana marka ayakii la riday kii kiilatiisa la ku soo celiyey 4.5 kan oo qabiilada wax lagu qaybinayo ra'iisul wasaare madaxweyne isku taagan laba qabiila waxaasoo dhan halkaas bay naga soo raaceen marka dadkeena wax bartay oo wadamada reer galbeedka ku nool waxaan ka rabaa shuruucdaas inaan bedelo oo Soomaaliya sharci ay leedahay ay qorato هذا اللي واحد من قرشان صدق سنة وحوالي شرعي وقبي لو تابعيه هذا من حوالي حسن الشيخ بعتقد أوفري هذا اللي يصير مركي كان بين قريني مركي هذا ماشي كوري من حسن مركي الدكتوري كل يقول هاي عملت ولا بلنت أوفري وعي هدي أنت هو شرعي وكقبلية شرعي حسن الشيخ بقوليستي بلنتي مكتب اللي شرعي وكقبتي كل يقول كوي شرعي تسال لها أو شرعي وده بسرعة حكومي أو سورياشي اللي كاها أو هذا ما هذا وحيلات بلنيا شرعي إلى هاي وبدلنا أيقو ديرية
haddii wax qabdamaan oo dadku qof iyo cod noqdo inay wax waagi doonaan oo maroorsigii iyo laaluuskii iyo isdaba wareegiisa ay wax ugu helaan bay waxay la dirirayaan waddanka sharci inuu yeesho waddan aan sharci lahaynna meel u aadaya lama arko waddankan maraykanka joogno 200 sano ninkii xafiiska imaanaya asagay u taallaa laakiin waxa u yaalla qaanuun la raaco oo aan qafna ka leexan karin baa yaalla waddankeennii marka sharcigii baa loo diidayaa marka hooy dadkeeni waxa sharcigii baa loo diidayaa ama ka dirirayaa mar walba dowladda caalamka beesha caalamka baad maqaysaa ku hayo marka beel caalamna wax nooma hayso أجنبي وحنا هي أفضل ولا دم اللي هي وكاكا يقول هي أنك الصومالي ذا أوبا هنينا إنه يدب سوون لغنو حاله إن أسترنو عيبتنا يعتذرنا هيسدوا الله نحرستين لو نجرا يحلوه بقول لها قولها وحاول وسر وسوى غير قبل ما هذا يرد لي قصار مرضى وين إلى فوق الأخوي يحرد يوم قيل له قال هذا في واحد وسر هو المهوى يعني شيء سيال دولار بقول شيء من هو يلي أفر ناس لا يبتشوا ما كوضع كينين واحد أنك أسكال أقول أنا ما هيسو أقول أنا ما هيسو أقول أنا ما هيسو واحد قبيلة وغير قبيلة يهدو واحد بلا يدو إبتي نما كاهم فقرنا يقول يوم دول تاجنا على أخرى يوم بخسر marka insha Allah ilaahay hayr badbaadiyo doonimada hada badbaadiyo anaka reegay muduga waxa la karaba balantaas nala nala shaqeynaysa insha Allah anakuna waa shaqeyn doonaa dantayaduna ma aha inaan masal ku gaaro oo ka raadinayno meesha hadda raadinayno awood inta ka badan baan leenahay aqoon inta ka badan baan leenahay energy inta ka badan baan leenahay ragga mudug baan waxa una hajaariyadeeda ee qabjoogta لكن الباب أكيد لو تذكرنا كحل إنه بانو كذا إن شاء الله وأنا كحل إنه أنا قبل مقالة إن أنا شغال يكون هذيني حول يكون هذيني وحدو بعنتنا قوانت ونحكي الله الباب وما سنتي فلا على الشارع هذا ما سيها يبدو هذا لو حين سوق يعني بنتي يجوا كبدي حفلتني قلب النايت هبين قروح بدن تديو قروح بدن يكسر القلين وحنمرك الأمة العلينا بهذا والبعينة صاحبتنا راشن دلسونا ليجن أوف ليجن هاي سومالي تي في سونا برو اس تي تي في يا يوجعلو سيدو كلا فنانيتنا غالية يا حفلتنا قلا سوق القلين دي جي وين دي جي خالد شخصي قليل جاليد الصومالي مركو عجز كهذا وش صلته البع مركب يلا بحين واي وحين لجوا فنانين وين هاتن وحال قاري قصدي كذا يلا السهر اللي هاي نمرض لك القرآن لها مركب عليا وماشي انك الشام ضرب يتردى رجل المذب أفهم وأنا واحد عالم بركة أدبا أما سنتين لما أنا سيدا دوا جبتين عزماتا أي نوفذيين مدحنا الناس جالية قلب ذو وعلى قاري حلقي فنانيتا اللي سود وين لهين طريقة الصهر اللهين ساعدك أيوب جعلون وأنا نجوغا بيجي غالي عاوك لنا مدحانا قرآن كارك فنانين هو اللي سي يعني حلو هذا ما تبدين